dadweynaha ku nool caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa siyaabo kala duwan uga dareen celiyay shirka uu iclaamiyay Boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow oo kamid ah siyaasiyiinta reer Somaliland waxaan hadaladoodii kamid ahaa shirka uu boqor ku baaqay waxa weyn Somaliland maanta waxa weeyaan way ka soo gudubtay shirbeeleed iyo waxaan loo baahnayn way waxaas maanta qaran baynu dhisanay qarankaas sidii loola wada shaqayn lahaa ee horumarka dalka looga shaqayn lahaa ee xuduudaheena loo sugi lahaa ee kulba dawladdu jirta dhinaca loo qaban lahaa way Somaliland inta aan ka shaqayso weeyaan laakiin kol haduu nin kolba shir iyo ficiis iyo wax waqti dadka laga lumiyo lagu wareeriyo looma baahna maanta annaga dhalinyarada gobolka Hargeysa ama caasimadda maanta waxaan ka hadlayaa shirka uu ku baaqay Boqor Buurmadow oo ay xukuumaduna ku tilmaantay shir siyaasadeed shirka run ahaantii horta haduu aayaha beesha uu yahay waa shir fiican runtiina aan waxaan leeyahay ka dhalinyar ahaan way fiicanta shirkaasi haduu siyaan ahayn siyaasad ahayn waayo waa shir uu boqor ku baaqay anigu shirkan iminka ka socda gobolka Togdheer burcabarigeediyo beesha galbeed ay ku qabsadeen oo soo dhaweeyay waana burca sidaad u aragteen meesha waa gobol doorashada aad ay kala qaybso gobolada kale ay ka rabtay doorashada gufti aad ugu doorashada ka dhalatay markaa waa khalad in ay xukuumaddu diido wixii keenaya midnimada gobol annagu ma aragnana wax keenaya khatar ku amniga dalka in laga tashanayo si dalka u midoobi lahaan bano waxaan ka hadlayaa shirka beeleedka lagu qabanayo magaalada Burco kaasi oo looga hadlayo magaalada Burco bariga Burco iyo galbeedka Burco beelaha deegaan shirkaasi waa soo dhaweynaya haduu yahay mid u ah danta dadka iyo danta dalkaba oo laga hadlayo arrimo ku saabsan dalka sidii dalka loo horumar lahaa si qabyaalada looga tagi lahaa ama looga takhalusi lahaa laakiin hadii looga hadlayo sheekadana gaar ah ama sheeko ah ku saabsan xagga siyaasadda waxaan u arkaa inay tahay wax laga fogaado xun waliba shirkaasi doorta war soo dhaafnay horta shirar beeleed in badan baynu soo galay dawladnimada deemanku wayno dhato dawlad aan la aqoonsan laakiin awood loo shirbeeleed ka soo gudubtay baynu doorta haysanaa shirbeeleedna wuxuu ku celinayaa inuu faq dawladda waxayna dawladdu ayna ogeyn hadii la sameeyo ambaba dadku ay isku urursan waa gulubaysiga iyo qabiilada iyo reeraha la diidayba inay koox loo shiro horta ma wanaagsan laakiin siyaabo kale loo shir dana kale laga hadlayo amba dhul amba magaciyo hawaasur waa wanaagsan tahay laakiin dawladdu ayna u egman inay bulshada ay samaysato wallahi sharkaas waxay u arkarnaa shara cusbiya loogu goleeyahay siyaasadaysan ma loo arkaraayo in la isku xulufaysanayo amba siyaasadda dibad riixayso kaas ma loo arkaraa baan maanaya dawladduna way madmaday shirarka aan ku saleysnayn horsocodka Somaliland wixii aan ka horimayn waa goosha laakiin waxyaabaha xulufaysiga shirka diinu shir fiican yahay waayo laba beelood badantoodii iyo mustaqbalkoodii ka wada hadlayaan markaan waxa la yaabana sababta dawladdu soo ku qabto beelaha shiraya waxa ku shir khayru ka fashadee hal kale aan waxaan ka yarboosanahay odayaasha dhaqankii wax isdhex geliyo iyo maxay tahay dawladda odayaasha dhaqankii beelaha waxaasu doonahooda ka shirayaan laba daamood baaba kala yihiin way mideynayaan waxay ka mideynayaan maxay tahay biyahay ka mideynayaan waxay ka mideynayaan cuntada ka mideynayaan wax ka mideynayaan wax qaybsiga marka mid baa ku ridinahay hadii siyaasad ku jirto yaani siyaasad iyo beelaka loo shiray waxa tahay waxa ka soo jeedno shirkan oo muran ka dhexdhaliya bulshada iyo dadka siyaasadda ka faalooda Axmed Maxamuud Cumar Axmed Dayax Bulsha TV magaalada Hargeysa